بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حراليها جود قرنكا تليها عيدا كبوليس كالصوماليات تليها عيدا كأسلوبته كرسورياش محكمة السرية دالكا قدوميها محكمة عيدا ماذا قدومياش محكمة السرية دولة قبلادية حرالياش جود مدحدا ككل سعوته وساردها كالدول قدوميها محكمة رفعان كقبل كبنادير قدوميها محكمة قبل كا ضمان كرسورياشة يحرالياشة كالدول حبناها كسعودها حفيسيدها هنتدو كجود كريقان كجود يهايدها كلا الدولة ده أقوم يهندا كسوقي بقلي مدشان مدحدا جامعتها يورد بالشدة أورك قريندا حول ودينada kala duwan ee garsoorka bahda warbaahinta ciidamada amniga sugaya wakiilada inagala jooga hay'adaha qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah ay nala shaqeeya dhamaantiin subax wanaagsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta wada joogno oo aad nagala soo qayb gashaan shir sanadeedkii garsoorka ee afraad oo sanadkii afraad oo xiriir ah maanta halkan inooga qabsoomay waxaan marka koowaad rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada ee shirkan qiimaha badan ee sharfan ee sida quruxda badan loo soo abaabulay iyo ka soo shaqeeyay oo waqti badan runtii geliyay waxa kale oo rabaa inaan u mahadnaqo dhalinyarada iyaguna midigteeda fadhiya ee inoo qaadaya hadal qoraalka shirkan ka socda waxaan rabaa inaan u mahadnaqo qof kasta oo gacan ka geystay qabsoomida shirkan iyo qof kasta oo ka soo qayb galay oo waqtigiisa u soo horay mar labaad waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo xubnaha ka socda garsoorka dawlad goboleedyada ee iskugu jira gudoomiyaasha maxkamadaha sare xeeraliyaasha guud iyo xubnaha kale ee ka socda garsoorka dawlad goboleedyada waan leeyahay ku soo dhawaada caasimadii dalka magaaladiinii muqdisho mudanayaal iyo marwooyin sida halkan laga sheegay shirkan waa shir muhiimad gaar ah oo leh guud ahaan dalka gaar ahaan garsoorka ay u jideeyeen qawaaniinta dalku inuu sanad walba bisha January qabsoomo si looga wada hadlo guulihii garsoorku gaaray caqabadihii ka hor yimid waxyaabaha hortaminta u leh iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya garsoorka dalka sharaf iyo milga ay noo tahay inay noo suurto gashay inuu sanadkii afraad noo qabso ma rabo inaan ku noqdo waxqabadkii caqabadihii iyo qorshayaasha uu garsoorku leeyahay waayo xiraalyaha guud ee qaranka ayaa si faahfaahsan halkan uga hadlay waxaan rabaa inaan awoodda saaro halku dhiga halkan ku qoran ee sanadka loo qaatay inuu yeesho shir sanadeedka garsoorka quraankii ayaa lagu furay wax hadalko ama aayad koobsanaysa micnaha ay leedahay marka laga hadlayo kalsoonida iyo aaminaadda bulshadu ay ku qabi karto garsoorka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl si fiican ayuu sheekhu halkan inoogu sharxay garsoorkana runtii awoodda ugu weyn iyo hubka ugu weyn iyo xoogga ugu ballaaran ee uu leeyahay ama yeelan karo ama uu heli karaa waxa weeye waa kalsoonida ay ku qabto bulshadu haddii garsoorku yahay mid ay bulshadiisu aaminsan tahay ay ku kalsoon tahay tuhun iyo walwal iyo shaki aanay ka qabin waxa hubaala garsoorkaasi inuu yahay garsoorka ugu awoodda badan isla markaana aanu u baahnayn hub iyo saanad iyo ciidan kale midna haddaba waxa isweydiin leh sidee ayaa loo xaqiijin karaa inay bulshada Soomaaliyeed kalsooni buuxda ay ku qabto garsoorkeeda yay ku xidhan tahay bulshadu inay garsoorka ku kalsoonaato ma garsoorka oo kaliya ay ku xidhan tahay mise waxa jira meelo badan oo kale oo ay ku xidhan tahay maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay garsoorka si uu hanto kalsoonida bulshada aynu halkan kaga hadlayno si garsoorku uu hanto kalsoonida bulshada waxa laga maarmaan ah
garsoorkaasi inuu noqdo mid si dhab ah u madax bannaan marka laga hadlayo madax bannaanida garsoorka waxa weeye waa inuu noqdo garsoor ka madax bannaan wax kastoo kale madax bannaaniduna waa mabda' weyn oo aasaasi ah oo asal u ah garsoorka isla markaana uu damaanad qaaday dastuurkeena madax bannaanida marka laga hadlayo garsoorku waa inuu xadidi karo awoodda hay'adda fulinta isla markaana uu dhowri karo oo ilaalin karo xuquuqda aadamaha garsoorku waa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah waa inuu noqdo mid hufan waa inuu noqdo mid karti leh waa inuu noqdo mid bulshada ugu adeegi kara si cadaalad ah si haddaba taasi loo helo waxaa iyaduna lagama maarmaan ah si loo helo kalsoonida bulshada inuu dalku leeyahay ama garsoorku uu leeyahay qawaaniin hufan oo cadcad oo la fulin karo oo uu garsoorku dabaqi karo waxaa iyaduna lagama maarmaana in la helo kaadirkii garsoorayaashii xeeraalayaashii iyo howlwadeennadii kale ee garsoorka oo ah kuwa aqoon leh kuwa karti leh kuwa alla ka cabsi leh kuwa hufan kuwa shaqada u gudan kara sidii loo baahnaa waxaa lagama maarmaanaya iyaduna inuu jiro isla xisaabtan oo garsoorka dhexdiisa isla xisaabtan buuxa uu ka jiro waxaa lagama maarmaana in cadaaladda marin loo helo dadku ay cadaaladda gaari karaan waxaa iyaduna muhiim ah hanaanka lagu qorayo garsoorayaasha iyo xeeraalayaasha sida shaqada looga saarayo iyo sida loo anshax marinayo intuba inay yihiin kuwa cad intaasi haddii la helo waxaa hubaala in garsoorka iyo bulshadu ay ka dhexdheci karto kalsooni dhammaystiran haddaba arrimahaas sidee baa loo xaqiijin karaa madax bannaanida garsoorka marka laga hadlayo gaar ahaan garsoorka Soomaaliya wax badan waxay ku xidhan yihiin hay'adaha kale ee aan garsoorka ahayn marka aynu ka hadlayno dhismaha garsoorka wuxuu u baahan yahay fulinta waxaana uu u baahan yahay baarlamaanka sidii halkan laga sheegay dalka Soomaaliyeed wuxuu ka guuray nidaamkii dawladda dhexe ee xoogga badan waxaana uu guuray nidaamka federaaliga su'aasha isweydiinta mudane waxa weeye ma la jaan qaaday garsoorka Soomaaliyeed hanaankaasi uu dalku u guuray federaaliga ma ka guuray hanaankii dawladda dhexe xoogga badan ma u guuray hanaankaasi federaaliga jawaabtu waxa weeye cidiba isma weydiin garsoorka Soomaaliyeed sidee buu ekaanayaa markii federaalka la qaatay kadib dawladda federaal baa samaysmay dawlad goboleed kasta wuxuu samaystay garsoor isaga u gaara isla qawaaniinta la dabaqo iyo kuwa lagu shaqeeyo waa kuwii dawladdii dhexe ee xoogga badnayd ay lahayd hanaanka uu garsoorku u shaqeeyaana waxa weeye hanaan federaal oo kala madax bannaan arrintaas runtii waxay caqabad ku tahay bulshada waxay caqabad ku tahay garsoorka waa mushkiladu way inaan la aqoon garsoorka Soomaaliyeed noocee ayuu u ekaanayaa federaal kadib waxa bilaabmay wada hadallo la xiriira hanaanka cadaaladda iyo asluubta laakiin nasiib darro weli laguma guuleysan siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan hanaanka uu garsoorku u ekaan doono waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala doorashada kadib in waxyaabaha koobaad ee ahmiyadda la siinayo ay noqdaan bal in la go'aamiyo garsoorka Soomaaliya ay yeelanayso haddii dalku uu qaatay federaal iyadoo ay jiraan ay habab kala duwan oo loo eegi karo mar walba iyadoo maanka lagu hayo duruufta gaarka ah ee aynu ku jirno ee dhaqan dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed waxaa iyaduna muhiim ah qawaaniinta uu garsoorku ku shaqaynayo sida aad ka war haysaan qawaaniinta aynu hadda dabaqno kuwa ugu waaweyn haddii ay noqoto xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeerarka madaniga iyo habkiisu ka ugu dambeeyay waxa la sameeyay sanadii 1974 waad qiyaasi kartaan isbedelka adduunyada ku dhacay muddadaasi 40 sano ee ku dhow iyo wixii ka sii horeeyo qaarkood la sameeyay 1962 dunidu isbedelka ku dhacay inta uu leeyahay waad qiyaasi kartaan qawaaniintuna waxay u baahan yihiin noqdaan kuwa la fulin karo isla markaana xukuumada ka soo baxaya garsoorku inay noqon karaan kuwa la saadaalin karo iyagoo ku salaysan qawaaniinta aynu ka hadlayno
qawaaniintaasi waxay u baahan yihiin si mug leh wax looga qabto wax looga bedelo isla markaana la dejiyo qawaaniin waafaqsan shuruucda shariicada islaamka dastuurka dalka iyo duruufta hadda aynu ku sugannahay sahlina karta in ummadda Soomaaliyeed ay heli karto cadaaladda ay u baahan tahay waxa laga maarmaan ah in la dhiso hay'adii ugu muhiimsanayd garsoorka dalka oo ah golaha adeega garsoorka oo mas'uulka magacaabista shaqo ka saarista anshax marinta dejinta miisaaniyadda garsoorka jaangoynta mushaharooyinkooda iyo hagitaanka guud ahaan hay'adda garsoorka oo runtii ilaa iyo hadda aan si dhab ah u hirgelin inta ay hay'addaasi maqan tahay suurtagal maaha in la helo garsoorka aynu niyadda ku hayno ee qof kasta oo Soomaaliya uu ku riyoonayo ee uu jecel yahay inuu helo sidoo kale waxa laga maarmaanayaduna inay fulaan go'aamada iyo xukunnada iyo awaamiirta ka soo baxaya hay'adaha garsoorka haddii aanay fulin go'aamada iyo awaamiirta iyo xukunnada garsoorka ka soo baxaya dadaal kasta oo la qabto shaqo kasta oo la qabto waqti kasta oo garsoorka la geliyo adeeg kasta oo bulshada loo qabtaa wuxuu ku dhamaanayaa micno la'aan waayo haddii halka loo socdaa waxa weeye marka dacwad la qaadayo xukunka ka soo baxay fuli haddii uu fuli waayo waxa kasta waxa weeye micno la'aan arrintaasna waxay garsoorka kaga xidhantahay hay'ado kale oo aan garsoorka ahayn inkastoo shaqo ay ka socoto laakiin aad iyo aad buu runtii gaabis u yahay waxa iyaduna lagama maarmaan ah bulshada Soomaaliyeed inay gaari karto ay heli karto cadaaladda waa access ay u heli karaan iyaduna waxyaabo badan oo runtii dabray ayaa jira dadaallo badan ayaa la sameeyay si ugu yaraan loo helo garsoor hufan waxa markii ugu horeysay la hirgeliyay in garsoorayaasha iyo xeraalayaasha iyo hawlwadeennada garsoorka lagu qaato hanaan furan oo tartan ah oo qof walba lagu qiimeynayo aqoontiisa iyo waay aragnimadiisa iyo xirfadda uu leeyahay garsoorka iyo la kacabsigiisa si markaa loo kor loogu qaado kalsoonida bulshada si ay bulshadu u hesho adeeg cadaaladeed oo haraadan tahay runtii waxaan aaminsanahay arrintaas inay wax weyn ka tartay garsoorka iyo shaqada uu qabanayo iyo in bulshada Soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto laakiin arrimaha kale ee waaweyn ee aan halkan kaga hadlaynay ayaa runtii dabraya waxyaabo badan waxaan ka rajaynayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee rajaynaya inay xilalka waaweyn ka qabtaan dalka qaybihiisa kala duwan amaba ka haya inay ogaadaan garsoorku inuu yahay hay'adda koobaad ee lagama maarmaanka waa dawladnimada inaan amni la heli karin garsoor madax bannaan oo hufan ilaa la helo inaana kobco dhaqaale aanu suurtageli karin ilaa cadaalad la helo inaanay bulshadu dawladnimada ku kalsoonaan karin ilaa garsoor madax bannaan la helo inaanay iyaga awoodooda iyo maamulkooda micno yeelan karin garsoor la'aantii marka waxaan kula dardaarmaynaa maanta madaxda kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed heer kasta ay yihiin golayaashooda kala duwan ee fulinta iyo baarlamaanka inay ahmiyadda koobaad siiyaan dhismaha garsoorka Soomaaliyeed oo runtii tiir lagama maarmaan oo dadku waxay yiraahdaan waa hay'adda saddexaad marka laga hadlayo garsoorka hay'adaha marka laga hadlayo dawladnimada saddexda dhardhaar dadka inta badan waxa ku badan waa hay'adda saddexaad waxaan leenahay hay'adda saddexaad ma aha waa hay'adda koobaad haddii aan garsoorka hay'adda koobaad laga dhigin hubaal waxa dalkani inaanu dhaqaaqi doonin marka runtii garsoorka horumar fiican buu sameeyay dadaallo badan baa la sameeyay wax badan baa isbedelay rajaad iyo aad u ballaaran baan qabnaa laakiin rajada garsoorku waxay ku xidhan tahay labada laamood ee kale oo runtii shaqo weyn laga rabo inay garsoor ka qabtaan waxaanu rajaynaynaa sanadka 2022 ilaa 23 inuu noqdo sanadkii ahmiyadda koowaad la siin lahaa garsoorka waxaan aad iyo aad mar labaad idinka mahadnaqayaa ka soo qaybgalkiina sida sharafta aad uga soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad nala joogi doontaan labada maalmood oo shirku socdo inaad ka qayb qaadan doontaan doodaha iyo cilmi baarisada halkan ka socda iyo go'aamada ka soo bixi doona insha Allah taala waan mar labaad waa idin soo dhaweynaynaa shirkeenina waa inoo furan yahay aad iyo aad noo mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh